Soomaaliya aqliga shaqeeyo meeshii nila diraawo ordina alla afduubtay qof la afduubto mobile haysta ma aragteen bismillah dadka Liibiya jooga waa laga soo duubi jiray ka kana soo duubo iska dhiga war waa maxay war sooti xitaa midibaya midiya dhacay waxba idinka qarinayeen midibay lidayada iska galisay oo markay isaga la dhacayso iska qabatay dadna tiraha oogay bay wad baxsan midibay xitayda ku taala kalida ka taala hadaba la eega waxyaalaha soo qarinay isaga nabarra ku yaala waxaan ku wala isku baa wala isku jabay waa tan wanaga la kala fardaamiyay waa taas hooyadiis inantii la hadashay waa tan baasaboorkii wixii laga soo qaaday waa tan la yiri aanu rabnay inaanu isagana hargeysa ka heeno bal hadda eega dado waayahay habeen hore shalay toole anagoo lacagina badnaki kala raba in la diro oo aanu shalay toole isleena damba bixi uun inantii reer guulad bana soo wacday shalay subaxii na war ma qabtaan un bay tirhaa lacagihii nin adarintii taalana waa jaala intiina kalena iska haysta maxaa dhacay waxa dhacay ninkii gabadhii bay telefoonku wada hadleeno waabay timidiyadu bahal gaariyo la ordayso halkanaaba la isku dul baroortayo hoogayay qamarow jabayay riyaanay alla hoognayay baanayay alla waan ku jecelaayay ana ka daranay hayga taginay meel looma socdo yeelaynaada waxa halkii la isku dul ooyay waba nugu afcad uu nugu yiri wax ma idin sheegaa ma salaam anigu reerkayga ba raacaya waxay tiri waa loo wada siisay qaday warba horta warbal sugno na reerkayga raacaya ma salaama inankii inantii way israaceen hadda bal eega tooyday waxa tadooy waxa sameeyay ma garanayo inankii markan loo soo qabtaan ku nuqar qamar meelan waxa joogta garan maayo meelan joogo sideen u garanaynin gaari baa la igu qaatay oo dad gaari baa la geey mana hadli karo war waayahay hageenu imika ka soo doonaa hageenu kuugu nimaadnaa hageenu imika ka soo doonaa ma garanayo waa ka yiri ilaahay bay igu ma garanayo meelan joogo gaari baa la igu qaatay hadad asaxaan ii sameynaysan lambarkayga un qaada waxaad gelisan jeeska ku soo raadiyo booliska u dhiiba ku yee war sidaan aad u garanaynin war ma naagtiba war ma nimanba war waayo idii ma sheegi karo walaal inkaar baan nagu dhacday anaga idii ma sheegi karo oo wallahi mana idin sheegi karo codkiisa dad aragto oo himba ku tirta wamraadala idii ma sheegi karo waan afduubanahay saaka markan inanta ayaan la yiraahdo joogta Nairobi markuu la hadlayay wuxuu ku yiri ii kaalay waxay tiri sugnanta marka koofeer ku daahday hadda waxaan u baahanahay marka Rayaan Bajaaj marra la sheegay waa gabadh halis ah la guuri laakiin ma rumaysan waxaan islahaa xaqay ku baratay laakiin waxa la yiri dad sixirka iyo baabka yaqaana ay iskaranayaan Rayaan Bajaaj gabadh halis ah macal Cabaaski hore qabayna waliyo walbahaar buu ka sheegan jiray laakiin Rayaan Bajaaj waa gabadh halis weey laakiin way taqaanaaba la igu laakiin anigu kuma dambaabi kar laakiin dadka ama xanta ama xamxamlaynta wax la yiraahdo wararkan la soo gaaray hoose waxay sheegeen in Rayaan Bajaaj qofka ay doonto ay rogto ka ay doonaysana ay qalibto si toosa laakiin miskiinkan oo shalay Soomaaliya ay ku faraxsanaayeen oo xaaskiisa oranay soo qoraysa adoo Ferrari haysta miyaa Bajaaj ka dooratay maanta Nasiim Sooraan iyadoo Ingiriiska joogta waxa la ii sheegay inay baarti dhigatay oo faraxsan tahay maanta way leedahay nafsigii uu aniga galay waxa ka soo baxay Soomaali waan indhi soo qabanaya wiilkan walaalkeen halay badbaadiye buu leeyahay waxana ciyaar ma aha waa kan umad Soomaaliyeed waxaan sheegayaa in Nairobi joogo waxaan sheegayaa in la taagay oo caadi ah markuu khadarkeeyo kala hadlayo waxaan u haystay inuu iska hadlayo laakiin anigii ayaa normal baahay magaalada Nairobi aan gacan iyo waxaan ka taagay waliba waa seen ku badbaadinaa waxan seen wiilka walaalkeen ku badbaadinaa wuxuu leeyahay waa la sixree war waxa inaan dhegersano loo dhan ninkan uu sakhraansan yahay waa in loo dhan barankii buu matalayaa war wiilka seen ku badbaadinaa war markuu ciida cunaad sugaysi markuu ciida cunaayad sugaynaa Soomaa war wiilka seen ku badbaadinaa wiilka seen aan filinkiisa ku qabana grantiisa war wiilkan sideen ku dirnaa magaaladu ka yimid Hargeysa isagoo nabada hadhow ha ka rogtaan maxaafadu aad tagtay sideen wiilkan ku badbaadinaa inoo soo ooyeeyay Soomaaliya iyo badbaadiya
isagoo isaaq ka soo jeeda ayuuna odhan isaaq way badbaadiya soomaali oo dhan badbaadi u leedahay wiilka seen ku badbaadinaa war waxaan soomaali wadad walwal hargeysa hadduu hargey Soomaaliga inta hadhay ciidamada ku baray qofka kugu dhow ciidagala raadi maanta dee adiga fanaan qabiil batid hore u cadaysato waxaaga soo maha adaa naga dhigayo waxaad doontaad nooga sheekayntaa maanta oo dhan bas adiga hadda fanaan Soomaali inaan ku barno chance noo siin weydo erayadan xataa afka kaaga sheegaynay baad fahmi weyd marka ilaahaga ama laba mid bay noqonaysaa inaad dhimato ood iska hoyato de ama inaad nafahanto de qofaan ku fahmaynin waa inuu dhintaa de qof walba maalintiisu dhimana laakiin ma aragtay dee qabiilka iska daa fanaan soomaaliyada ku aqoonsan aniga wallahi walaal haddaad af soomaaliga fahmayn inaad iska dhimataan ka jecela qofaan af soomaali fahmayn inuu iska hoydaan jecela wallahi I like that adduunkan waliba ugu jeclo qofkaan af soomaali fahmayn inuu iska dhinto I like that amro hob ka dhigaa lagu leeyahy wallahi ma dhigayaan haddaad af soomaali fahmayn wallahi waxaan ka jeclaan wallahi may inaad dhimataan ka jecela inaad olala af soomaaliga haddaad fahmayn qof walba maalintiisu dhimanayo waa ka hor dhimaan kuri maalintaada ka hor dhima haddaanad af soomaaliga fahmayn adkaatay wadnaga iga furfur wallahi billahi tallahi baan ku dhi haddaadanad af soomaaliga fahmaynin maalintaada maalinta ka horeysa dhimo brotherkayga haddaba caawa annagaa sheeganayna ciidagalaanay ingiriiskina wuxuu nagu yidhi mataqaanaa af soomaaliga inta hadhay adaan kaaga tegay anaa haddaba inta af soomaaliga kuwaa dhan ku baraya ninkii ila hadlayay horta mid سفر جعل هذا safar jacaylow qamro soomaaliga inta hadhay ciidagalaas ku baraya qofka kugu dhow ciidagala raadi haddaan isfahmaynin maalintaada maalinta ka horeysa iska dhimo ilaahay baan kuu bariyay weliba ilaahay baan kuu bariyay haddaan waaye walaal miyaan ku qaldanay af soomaaliga qamro hadda habaar ma isku bedeshay walaal maanta lana ku xishmeynayna ixtiraam ma luuqadaadii baan anugu qamari ku baraa maalin kasta maan kugu celceliyaa maxaana barta anigoo ku ixtiraamay ilaa hadda ixtiraam kama tegin mugti walaal ixtiraam maahe sidaad u hadlaysa xataa wax ka qaldayin waanay wada arkayaan dadku oo caadi ahaa ma anaa kumaan caanin wax kuma dhigin هذا واقع صراحة مريقو كجرا أنا وانكو سلام haddaad reeqooyi tahayna oo runaa baad odhan leyd هاي وانكو سلام يا قمر ولالك walaalkii lifeka iskaga baxa af soomaaliga waa lagaga fiican yahay beentuna dee xaqdarra